waxaa magaalada Portland ee gobolka Oregon markii ugu horeysay lagu soo dhaweeyay fanaanka caanka ah Nimcaan Hilaac oo bulshada Soomaaliyeed ee magaaladaasi ugu yimid inuu la dabaaldego xuska sanad guurada 62 ee xurriyadda maalinta Soomaaliyeed. waxaa garoonka diyaaradaha PDX ku soo dhaweeyay madaxweynaha hay'adda Somali American Council of Oregon Mudane Muuse Olol Diinle. waxaa sidoo kale fanaanka qaabilaad kooban loogu sameeyay xafiiska hay'adda SACCO halkaasi oo warbixin kooban kaga dhageystay madaxda iyo maamulka hay'adda. Bismillahirrahmanirrahim. maanta waxaan joognaa xafiiskii Somali American Council of Oregon. waxaa sharaf inoo mudan inuu nagu soo ziyaartay fanaankeena weyn ee qaran Nimcaan Hilaac oo ay ahayd markii u horeysay magaalada Portland noogu yimaado. maxaa la dhahaa waan ku faraxsanahay DJ Mustafa oo nagu cusbeen oo sanadkii labaad ay tahay oo magaalada noo kala kicinayo gudoomiyaha Farxaan iyo DJ iyo Xuseen marka waan kusoo dhawo walaalkiis magaalada kusoo dhaweynaynaa sidoo kale fanaanka Nimcaan Hilaac ayaa waxa uu sheegay uuna ballan qaaday SACCO inuu la garab istaagi doono hay'adda wixii karaankiisa ah siiba barbaarinta iyo wacyigelinta dhalinyarada. bay tahay inaad ka qayb galo maalinta qaranimada Soomaaliya. dabcan anigu markii ugu horeysay imaado magaaladan waxaan xasuustaa markii ay soo wargeliseen isku raacnaan in imaado waxaan ka fikiray horta safarka dheer laakiin si safarkii waxaan ku ilaahay hadda marka ay yimid inay xaal wareysteen baranaysa xog wareysanay. dabcan safarkaasi safar qiimo badan buu ahaa inaan si weyn u xusno maalinta qaranimada Soomaaliya ayaan halkan u yimid. idinkana wadi kama celinayaa bahda SACCO. waxaan rajeynayaa inaan waqtiyo kale oo badan aan imaado insha Allah oo idinkala qayb qaadan doono sida sportiga oo kale waqtiyada arrimaha bulshada ka shaqeynaysan oo kale wadi ma doono hadii lahayd. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.